Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaynu qaadanaynaa ciwaan ka mid ah ciwaanada percentage ama boqolleyda kaasoo loo yaqaano original value ama original price ayaa lahaa. Original value ama original price-ku muxuu yahay? Original value waxaa waaye original value waxaa lahaa shay ayaa qiimo dhimis lagu sameeyey boqolkiiba 20. Qiimo dhimis waxaa lagu sameeyey boqolkiiba 20. Markii qiimo dhimis boqolkiiba 20 lagu sameeyey ayuu qiimihiisa wuxuu noqday tusaale 150 ayuu noqday. 150 ayuu noqday. Qiimo dhimis lagu sameeyey oo boqolkiiba 20 ah markaas wuxuu noqday boqolkiiba 50 ayuu lacagtiisa lagu gad lahaa oo macaamiisha dadka loo gad lahaa ayuu boqolkiiba 50 noqday. Markaasi original value waxaa lahaa shaygan qiimo dhimista lagu sameeyey boqolkiiba 50 ka noqday markii qiimo dhimis kadib lagu sameeyey boqolkiiba 20 ah asalkiisa intaana qiimo dhimis lagu sameyn ka hor lacagtiisa meeqa ahayd kaas ayaa lahaa original value ama original price macnaha asalkii qiimihii asalka ayaa soo raadinay intaana qiimo dhimis lagu sameyn ama hoos loo dhigin ama discount lagu sameyn. Marka qaacida lagu helo qaacidada waxaa waaye new value shaygan qiimihiisa cusub oo kasoo qaad 150 ka ah ayaa waxaa u qaybini 100% marra plus noqon marra minus noqon. Plus minus maxaa waaye markii hoos loo dhiga qiimihiisa minus isticmaale oo minus 100 laga jaray minus adhe 150 percentage marka haddana waxa ku filan 100 markii plus tan waxa waaye tusaale shaygan ayaa 140 buu ahaa markaas waxaa laga dhigay 160 baa laga dhigay markaasna waxa isticmaali plus oo uu ziyaaday minus waa hoos dhig plus tan kor ayaa loo ziyaaday qiimihiisa kadibna boqol ku filan qaacidadaas ayaa lagu helaa. Aan qaadano tusaale koowaad waxaa lahaa ammaan ayaa nin base wuxuu ku gatay 149.5 euro in a sale for a DVD player samaacad ama cajalad ayuu wuxuu gatay 149.5 kaasoo lagu calaameeyay ama lagu xayisiiyay 35 boqolkiiba inuu discount yahay. Haddaba waxaa soo saartaa qiimaha asalka ah ee DVD playerka nin ayaa wuxuu ku gatay lacag dhan 149.5 euro cajalad kadib markii lagu sameeyay ama markii lagu calaameeyay inay tahay dhinaca qoos qiimo dhimis lagu sameeyay boqolkiiba 35 waxaa iska rabaa marka intaan qiimo dhimis lagu sameynin DVD ama cajalada 149 ay noqoneen lacagteeda meeqay ahayd intaas ayaa iska rabaa. Markaan qaacidadan isticmaalayna qiimaha waxaa soo saarayna DVD-ga marka DVD playerka DVD qiimaheedu waxaa waaye qiimaha cusub oo new-ga oo 149 ka ah 149.5 oo loo qaybiyay 100 minus sababta u isticmaala waxaa waaye xayisiisa lagu sameeyo oo qiimo dhimis lagu sameeyo oo 35 marka minus 35 aan ahaynaa oo lagu dhuftay 100 qaacidada saas baad waxay la mid tahay 149.5 ayaan 100 ku dhufaynaa marka ku dhufana waxay noqoni 100 waxay noqoni 24,950 oo loo qaybiyay 100 waxaan ka jaraynaa 35 marka 135 laga jaro waxaa soo bixi 65 waxay la mid tahay 24,950 waxaan qabeynaa 65 markii loo qaybiyo waxaa soo bixi 230 euro. Qiimaha asalka ah ee DVD-da waxay noqotay 230 halka markii qiimo dhimis lagu sameeyay 35 boqolkiiba 49.5 ay noqotay marka qiimaha asalka ee noo diray waxaa waaye 230 euro. Example 2 tusaalaha labaad waxaa la cable lamaan ayaa baas waxay iibsadeen afalaad guri anamekas waxay ka heleen 18 boqolkiiba faa'iido ah
ayagoo gaday 3 sano kadib lacag dhan 153,400 euro. Haddaba waxaa xisaabisaa qarashkii asalka ahaa ee guriga. Lamaane ayaa guri ayay iibsadeen kadib waxay ka heleen 18% faa'iido ah. Markay gadeen 3 sano kadib lacag dhan 153,400 euro. Marka waxaa xisaabineynaa original cost-ga ama kharashkii intaana guriga ay ka iibinin markay soo iibsadeen ay kadib ayna iibinin lacagta intuu ahaa. Macnaha markay soo iibsadeen bas lacagtaas markay soo iibsadeen lacagta ay ku iibiyeen ayaa waxaa laga rabaa inaan soo saarno qiimihiisa. Original cost ayaa laga rabaa. Marka original cost-ga waxaan lagu helaa original cost-ga waxaa lagu helaa new oo loo qaybiyey 100 oo lagu daray 100% oo lagu dhuftay 100. Marka new waxaa haysanaa lacagta haysanaa waxaa waaye waa 153,400 waxayna u qaybinaynaa 100% 100 oo lagu daray lagu daray maxaa u dhahnay sababtoo ah waxay ka heleen faa'iido. Macnaha ayaga soo iibsaday markaas way sii iibiyeen marka faa'iido ka heleen. Faa'iidada ka heleen waxay dhan tahay 18%. marka lagu daray 18% ayaa dhahnaa oo lagu dhuftay 100 waxay la mid tahay 153,400 markaan 100 ku dhufano waxaa noo soo bixi kadib waxaan u qaybinaynaa 100 haddaan 18 ku darno waxaa noqoni 118 waxay la mid tahay laba tiro ayaan isku qaybinayna. Markaan laba tiro isku qaybino waxaa noo soo bixi 130,000 oo euro ayaa noo soo bixi. Lacagta lagu iibiyey waxaa waaye 130,000 oo euro. waxayna sameynay lacagta oo 153,400 oo euro ay ka 3 sano kadib ay ku gadeen ayaa waxaan u qaybinay 100 oo lagu daray faa'iido ay ka heleen oo 18 ah. kadib waxaan ku furnay 153,400 ayaan 100 ku furnay waxaa noo soo baxay 15,340,000 oo loo qaybiyey 118 ku darnay waa 118. marka 15,340,000 ayaa waxaan u qaybinay 118 kadib waxaa noo soo baxay 130,000 oo ah lacagta ay ku iibiyeen lacagta ay soo iibsadeen markay soo iibsanayeen guriga ay ku soo iibsadeen. Number 2 saas ayaan shaqeynay. Tusaalaha saddexaadna waxaa waaye an electrical store dukaan koronto ayaa meelkaas waxay sameeyeen 40% faa'iido ah. kuwaasoo maxay ka sameeyeen wide screen television ama dhalada shaashada ah dhalooyinka shaashada oo ay iibiyaan haddii ay ku iibiyaan qiimaha 32 inch television HD ah ay ku iibiyaan 630 euro. haddaba waxaa xisaabisaa kharashka. What was the cost of the dealer? waa maxay kharashka iibiyaha macallada dukaan koronto qalabka koronto lagu gado ayaa waxay helaan 40% faa'iido ah ayagoo ka gada iibiya ama ka ganacsada telefishinada ama dhalooyinka dhalada ah. waxaa la haddii ay gadaan qiimo dhan telefishinka 32 injiga ee HD-ga 630 euro haddii ku gadaan waa maxay kharashka iibiyaha qofka iibiyaha kharashkiisa waa maxay. waxayna sameynaa marka cost of a dealer ayaan raadinayna kan ayaa raadinayna marka waxaa lagu helaa new-ga ah
oo lacagta ay ku iibiyaan. New oo 630 oo loo qaybiyay boqol percentage. Kadib ku daraynaa faa'iidada waxa ku daraynaa faa'iidada 40 ay ka helaan percentage ah. Kadib waxaan ku dhufanaynaa boqol ayaan ku dhufanaynaa. Kadib waxay la mid tahay 630 haddaan boqol ku dhufano waxaa noo soo bixi 63,000 ayaa noo soo bixi oo loo qaybiyay 140 ku dar waa 140. waxay la mid tahay 63,000 loo qaybiyay 140 waxaa kuu soo bixi 450 euro. waxayna sameynay telefishin kasta waxaa lagu iibiyaa 630. marka waxaan u qaybanay 100 oo lagu daray faa'iidada oo 40 boqolkiiba. kadib waxaan ku dhufanay 100 630 markaan 100 ku dhufano waa 63,000 ayaa loo qaybiyay 100 marka 40 lagu daro 140 kadib 63,000 iyo loo qaybiyay 140 marka la isku qaybiyo waa 450 euro. marka iibiyaha lacagtiisu waxa waaye ama kharashka iibiyaha waa 450 euro.